bismillahi raxmaani raxiim maanta ay taariikhdu tahay 22 Diseembar 2020 wuxuu madaxweyne Cabdilcasiis Xasan Maxamed Lafdigareen uu shahaado sharaf u guddoonsiiyey taliyayaasha ciidanka qaybta 6aad iyo taliyayaasha ciidanka qaybta booliiska sidoo kale taliyaha booliiska guud ee Koonfur Galbeed taliyaha qaybta booliiska gobolka Baay taliyaha booliiska gobolka degmada Baydhabo dhammaan waxay shahaadadu ku muteysteen sidoo madaxweyne Cabdilcasiis Xasan Maxamed Lafdigareen uu sheegay wada shaqayntii wanaagsanaa ee dhexmaray sanadkii la soo dhaafay labadii sano ee la soo dhaafay waxyaabihii ay ka qabteen deegaanada Koonfur Galbeed sidii amniga deegaanada Koonfur Galbeed loo xoojiyay iyo sidii kooxda nabaddiidka Al-Shabaab ay ugu xoreeyeen deegaano horle iyo degmooyin wuxuu madaxweyne Cabdilcasiis Xasan Maxamed Lafdigareen ku booriyey kuna bogaadiyey in howsha halkan ay ka sii wadaan ayna sii adkeeyaan amniga deegaanada Koonfur Galbeed sidoo kale waxaa shahaado sharaf xafiiska madaxweyne Cabdilcasiis Xasan Maxamed Lafdigareen lagu guddoonsiiyey xafiiska warfaafinta madaxweynaha oo iyagana runtii labadii sano ee la soo dhaafay khaasatan sanadkan hadda la soo dhaafay ku muteystay shaqo wanaagii ay ka qabteen xafiiska madaxweynaha khaasatan waxyaabihii waxqabadka madaxweynaha ay aad u muujiyeen sanadkii la soo dhaafay sidoo kale waxaa xafiiska madaxweynaha shahaado sharaftan lagu guddoonsiiyey wariyaashii madax bannaanaa kuwii qabiiriinta ahaa deegaanada Koonfur Galbeed markii magacooda la soo qaado aad loo yaqaano waxay ku muteysteen shahaadadaas uu madaxweyne Cabdilcasiis sheegay shahaadadan lagu xusay shaqadii wanaagsanaa ee muddooyinkii labada sano ee madaxweynaha ay naftarkooda kala shaqeeyeen quruxda soo bandhigista magaalooyinka deegaanada Koonfur Galbeed haba ugu badnaatee deegaanada degmooyinka ee quruxdii ay kasoo bandhigeen runtii wuxuu madaxweyne Cabdilcasiis ku booriyeen kuna bogaadiyey in ay shaqooyinkii halkaasi ay kasii bogaadiyaan ay kasii wadaan sidoo kale waxaa halkaas shahaado lagu guddoonsiiyey maamuus oo ayaga naftarkooda runtii qayb ka ahaa soo bandhigistii quruxda magaalooyinka khaasatan xafladooyinka ay ka qabteen deegaanada Koonfur Galbeed ugu dambeyn wuxuu madaxweyne Cabdilcasiis Xasan Maxamed Lafdigareen dhammaan dadkii halkan maanta shahaadada ku qaatay ugu qayb ka ahaa aan iraahday agaasimihii guud ee madaxtooyada Koonfur Galbeed Cabdulaahi Cali Watiin oo runtii asagana ku muteystay shaqo wanaagii muddadii koobneed uu xafiiska joogay uu ka qabtay sidaad ogtiin madaxweynahana uu ka muujiyey qiray in shaqadii wanaagsaneed uu qabtay Cabdulaahi Cali Watiin sidoo kale ugu dambeyn wuxuu madaxweynaha Koonfur Galbeed madaxweyne Cabdilcasiis Xasan Maxamed Lafdigareen uu bogaadiyey dhammaan dadkii halkan maanta shahaadada lagu guddoonsiiyey wuxuu kula dardaarmay in shaqada ay hayaan ay halkan kasii wadaan ayna sii xoojiyaan si sanadkan sanadkiis xiga shahaadada midka kasii qurux badan iyo bilad sharafyo ay ku guddoomaan wabillahi tawfiiq. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.